xogayaha guud ee xisbiga macaaridka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Urcadde ayaa ka hadlay xaaladaha la xidhiidha magaalooyinka Oodweyne iyo Berbera. Xogaye Maxamed Cabdilaahi Urcadde oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi Oodweyne waxa ka socda muddooyinkan dambe arrin la yaab badan oo runtii aad iyo aad looga yaabiyay qaabka dawladnimada ka baxsan qaabka maamulka ka baxsan waxa ka socda Oodweyne in gudoomiyaha degmada oo golaha deegaanku doortay golaha deegaankana oo shacbiga reer Oodweyne ay doorteen in xukuumadda wasaaradda arrimaha guduhu ay si toos ah faragelin ugu hayso iyadoo doonaysa in xil ka qaado sababna looga dhigayo ninkaas waa wadani wax inta ka badan aan ahayn waxaan u arkaynaa waxa weeye xilka cidda u dhiibatay maaha xukuumadda dhexe xilka cidda u dhiibatay waa golaha deegaanka baana hawshaale waxaanu leenahay faragelinta aan laga daayay qaawan ee xukuumaddu ku hayso wada shaqaynta ay xukuumaddu ka joojisay maadaama wadani yahay inay la shaqaysana waa nasiib darro dalka waxa ka mas'uula xukuumadda wadanina waa ummad dalkan leh ummad ka baryaysa xukuumadda maanta talisa inay la shaqaysana ma aha way ku qasbanta waxaanu leenahay danta xukuumadda iyo danta qaranka iyo danta reer Soomaaliland waxay ku jirtaa qaabkii dawladnimo in aan la burburin dadka ay doorteen reer Oodweyne ay doorteen sidoo loola shaqeeyo laakiin haddii la isku dayo in dadka la yiraahdo waa wadani oo loo diido xaqooga waxa ay ma doontaa to aan maanta waxaanu leenahay qaabka dawladnimo yaan la burburin nidaamka yaan la burburin nabadda yaan la burburinin xukuumadda kulmeena waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ku dadaasho beeraha haddii aad ka dhigtay wasiir haddaad tiri haamuhu waa bakhaar horta waa nasiib darro bakhaarka nin baa leh laakiin haamaha ummad baa leh waa intaa garatay ahayd haddiise aad adigu ku faantay dee bakhaarka waxaa laga qortaa nootaaya adeer la qoraa oo ninka kaa karaysanaya nootaaya laga qortaa soodiga diidan haamihii in sharcigeedii la qoro in sharcigeegii lagu shaqeeyo maxaad u diidanta ma bakhaar ayaruu intuu galo iska furtaad aragtay markaynu taada raacno laakiin waa nasiib darro haamaha Somaliland in wasiiradu ay ku sheegaan waa bakhaaro berberina waxna siduu doonaya uu ka yeelo way ka weyntay beendhaftiina ha u sheegina nimanka xukuumadda la hadlaya waxa berbera lagu leeyahay waxa weeye ummadda reer Somaliland ku wada leedahay waa sharci wixii ka baxsan cid gaar ah oo muddooyinkan dambe dadka gobolka Soomaaliya degan runtii oo reer Somaliland ay dagaalo ay halka ay ka socdaan ay Puntland dabada ka wado oo Puntland ay ku soo duuleyso waxaan horta marka hore ugu baaqaynaa dadka walaalaha Israa'iiliga in xabadda joojiyaan oo ay arrimahooda si walaalnimo ku dhameystaan mar labaad dawladda Puntland waxaan uga digaynaa inay faraha kala baxdo dadka reer Somaliland iyo shacabka reer Somaliland iyo dadka reer Puntland ee ay isku garaacayso inay faraha kala baxdo si amniga mandaqadu uu hagaago sidoo kalena siyaasiga Axmed Like oo ka mid ah xisbiga macaaridka ee wadani ayaa ka hadlay xariga Suldaan Sabayse iyo safarka madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ugu baxay dalka Ireland siyaasi Axmed Like oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi xarig xaaraan abuha oo aan waxa ku beeskaraysan gelista guriga salaadiinta malaasilayn wiilaway wuxuu ahaa waa gurigii markuu doorashada doonayay horta gelinka dambe iyo gelinka horeba uu soo mari jiray ee damiinka uga ahaa shacabka Somaliland inuu madaxweyne noqdo Siiraanyo waxaan leeyahay hayso suldaanku ha soo deyn intaad karasho dilaalisi u dambeeyay Dubai imaka waxa laga soo dilaalkii laga soo qaadayaa airportka ayaa carabti la sarkaya airportka imaka dilaalkiisi lagu jiro oo ay u tageen u sii mareen Dubai madaxweynuhu iyo marwadiis iyo inay Hargeysa dhamaatay iibkeedii dhulkii Hargeysa dhamaaday markaa waa baran baa qaylinaysa maalin dhaweyto lahayd naga soo gaara aqaladii saddex maqsina la iibinaya markaa waa maalin burca ku xigaysa hadii alla ka dhigo markaa imika waa phase 2 oo berbera laga bilaabay waxa weeye waa freesonkii waa waqbiyihii waxa weeyaan shamiitadii waxa weeyaan iskaraabkii waxa weeyaan dekadii waxa weeyaan freesonkii baa xitaa isna iibaho liiska ku jira haamahana way makaceen kana
qaadashada. xasan maalidar telefishanka caalamiga Star magaalada Hargeysa.